Assalaamu calaykum sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadh iyo hooyadeed. Gabadha iyo hooyadeed waxay haayeen kuwo aad iskugu dhow. Gabadhuna waxay ahayd xilliyadii ku jirtay sekondariga. Islaantuna waxay ahayd mid gabadheeda mar walba la tashata. Gabadhuna waxay u sheegi jirtay ra'yigeeda ka qabto waxaas. Laakiin gabadha yar waxay ahayd gabadh intay hooyadeed wax walba u fasaxday oo mar walba ciyaar iyo dheeldheelka jecel. Manayna eegi jirin hooyadeed tabtani ugu daadan tahay. Iskuulka xitaa markay tagto waxay ahayd markay ardayda dhex fadhiisato midaan casharka aan la socon. Iyada shaqadeeduna waxay ahayd inay iyadu hadiyadaha iyo waxyaabahaas ay iibiso. Dadkuna aad bay u jeclaayeen shaqaday ka shaqaynayso. Laakiin gabadha waxay ahayd midaan iskuulka ku fiicnayn oo mar walba casharka ka dhigata ciyaar. Ardaydoo dhammeeyada ayuu haysan jireen ciyaar. Markay maclimadda soo jeedisatay tiraahdo gabdhaha sheekaynaya sheekada iga daaya way aamusi jireen. Dada markii maclimadda sii jeesatay hadan hadalkeygii iyo qosolkay ardayda ku qoslinayay bilaabaysay ilaa intay maclimad marka dambe ay ku xanaaqdo iyadii wixii la sheekaysanay ku oran jirtay idaafa dhammaantiinba. Laakiin iyadu damiir may lahayn oo gabdhaha kale markii la ariyo maalintaasaa ugu dambeyn jiray waxay ku oran jirtay xiisad ayaad iminkayna soo dhaafisay. Hadalkaagii baana idina soo dhaafiyey bal maxaad inoo tartay. Gabadha kalena waxay ku tiri aniga iska sheekaysanay adigaana qoslayay anigu kumaan baahnayn. Gabadhii kale waxay ku tiri anigu maclimadda waxaan ku oranayay isaamax dib dambaysana kulama saaxiibayo. Laakiin gabadha may ahayn mid tacabka hooyadeed mid ay u muuqato. Arday walba oo banaanka lagu soo tuurooyada la mida ayaana meesha joogi jirtay. Ardaydana waxay dhigan jireen galaaska ka sareeya markaasay ku tiri ka waran haddaan ku baranno waayo anaguba xiisad ayaa lanaga soo ariyey oo adigaan kula mid nahay. Markaasay ku tiri aniguba galaas baa layga soo ariyey gabadhii layla soo ariyey nooba iska xanaajisa waba iga tagtay. Idinkaaba maanta wixii ka dambaysa saaxiibi la noqonaya. Gabdhihii moobilkii bay kala qorteen waxayna isfahmeen labadii gabdhood. Gabadhu maalinta wixii ka dambaysay waxay noqotay gabar gabdhaha ku xiran mar walba la soo ariyayo ee aan waxba dhiganayn. Gabdhahaasina mar walba waxay ugu yeeri jireen xafladaha iyo meelahaas. Islaantii hooyadeed waxay aragtay gabadheedii inay qoslayso oo inay waxba diyaarsanaynin moobil uu fadhido. Markaasay ku tiri maxaa kugu dhacay. Markaasay ku tiri hooyo waxaan halkaan iskaga marinaynaa cashar hablo badan ee inaan wax kuu dhigta maanad doonay. Markaasay ku tiri moobilka dhig oo orod jiibsoo seexo. Idina isbedelka intaa lag way arkaysay. Aroor walba markay soo baxdo waxay ahayd mid laga soo ariyey galaaska lagu oranayo adiga iga bax. Dooraha qaar waxay ku tagi jirtay iskuulka iyadoo ka raadsanaysa iskuulkan dhan oon doonay inay tagto waayo hooyadeedba aad ugu warhayn jirtay. Inta faraha badan maclimaddu waa ay soo ariyeysay dadkuna lama ay saaxiibi jirin. Ilaa inta markii dambe ka dhex weyday galaaska waxaa la sheekaystay arday walba uu haystay kitaabkiisa uu diiday in lala sheekaysto. Maclimadiina maalintaa wixii ka dambaysa waxay ku tiri dib bahay ugu soo noqon ilaa intaad hooyada keentid mooyaane waayo galaaskaada u rafrad ayaa tahay. Maclimadiina waxay ku tiri dhegayso aroortaadiba hooyada wadayeed waxaanaad u tagtaa maamulka halkaasaan ku wada sheekaysanaynaa. Gabadhi waxay ku tiri aniga ayaa hooyaday kuu keenaya waanad mahadsan tahay aniga hooyaday gaarsiinaya orod imika iska sii soco. Maclimadiina way iskaga tagtay. Ardaydii kale iyaguna la soo ariyi jiray ayaa ku yidhi markii dambe mama alaynada noocan ayaa kuu bootaynaysa oo galaaska kaa soo ariyeysa anagaa iskaga soo baxna hooyadana waxba ha u yeerana waxaa samaysaa kaale anaga mar walba naraac. Markaasay ku tiri oo adinku waxaad moodaysaa inaan hooyada u yeerayo uguma yeerayo yada ayaa iska waalan doonta. Markaasay ku tiri sidaas ayaan kaaga baahan nahay waayo anagaba maalin walba u yeerayaana nagu raada umana yeerno. Gabadhii iyo gabdhihii kalena waa ay qosqosleen oo waxay iska dhigayeen inay iyagu saxsan yihiin. Laakiin gabadhii markii dambe gabdhihii aad ula qabsatay waxay mar walba hooyadeed ka raadinaysay lacag aad u fara badan oo ina hooyadeed hayn. Markaasay ku oran jirtay hooy iskuulkaana layga soo codsaday inaan lacagta intaa leeg soo bixiyey hooye bal lacagta i sii. Markaasay hooyadeed ku oran jirtay anu lacagtan intan leeg aad guraysid garan maayay aniga ayaa ku siinay laakiin waa ina maclimadda waraysto. Markaasay ku tiri ardayda kaleba lama waraysto waalidkoogu ma waraystay aniga maxaad ii waraysanaysaa ii dhib maanad igu kalsooneen. Islaanta waxay ku tiri hoob oo maalin dambe laakiin waxaan u tegayaa maamulka. Islaantii markii habeenkii jiifsatay gabadhii aayar ayay ka soo baxday waayo waxay tegaysay xaflad ay lahayd saaxiibadeed. Saaxiibadeedina waxay ku tiri maxaad u soo habsaamtay ma hooyada ayaad ka cabsoonaysaa. Markaasay ku tiri maya eedaraan xitaa ayaan soo iibsanayay waayo waxaan doonayn xafladda u ekaado qof aad u qurux badan.
waxayna soo noqon jirtay habeenka xilliga dambe sidayna hooyadeed u ogaan way seexan jirtay iyadoo hooyadeed ogeyn. Aroortii markay hooyadeed soo toosto waxay doonaysay inay gurigan sii xidho oo iyadu kaga dambaysa gabadhana ay ogaato inay iskuulkii tagtay in kale. Laakiin way u toosin kari weyday. Markaasay ku tiri maanta maxaa kugu dhacay? Soodii xilli horena seexday. Markaasay ku tiri hooyo igu soo noqo. Waan ka ayaanigana diyaargaroobayay. Maanta furahana iga tag oo oraska soco. Kaasay islaantii ku tiri waan tegaya waan baxaya laakiin haddaan kugu soo noqdo adigoo halkaa jiifa adiga ayaa garan doona. Sidii bayna islaantii iskaga tagtay ayna ku furatay dukaankeygii siday u soo iibiso. Markay soo noqotay xilligii duhurkii iyadoo qadadii wata oo isla karin inay gabadhaada iyadoo gaajoonayso soo noqon. Iyaba waxay aragtay gabadhii iyo halkii jiifta. Islaantiina xanaaq daraadeed ayay dul timiday ku tiri saacad waa imisadii adiguna xilmada hurudda aniguna hore ayaabaan u keenay qadadii. Waa maxay xilliganad maanta meesha hurudda? Markaasay ku tiri hooyo maanta waan xanuunsanayay hawaanan tegi kari waayey anigana imika qada iyo wax walba inoo samaynaya. Laakiin islaanta waxaa kamay aqbalin waxayna ka dhigtay inay maalintaasoo dhan guriga dhan nadiifiso waa iyada ayaa tegi weyday casharkeygii. Maalintii dambe haddana gabadhii waxay weydiisatay hooyadeed inay lacag siiso siday u geyso iskuulka. Islaantu waxay ku tiri lacagta aniga ayaa aroortii iskuulka geynaya orod seexa imika looma baahna in aan ku siiyo. Aroortii markay gaadhay ay asxaabtii ku yidhaahdeen waanu ka ognahay hooyada kumay soo fasihin xalay toole lacagtiina waa lagu diiday. Anagu qofka waxyaabahaasoo dhan hooyadii kaga cabsoonaya inuu sheego lama saaxiibi karayno. Markaasay ku tiri maxaa sameeye? Hooyadii lacagta intaa leeg waayay ii diiday. Aniguna waxaan isleeyahay ku khashifay inaanad waxba dhigan. Markaasay ku yidhaahdeen haddaba waxaa samaysaa anaguna maanta wixii ka dambeeya asxaab ma noqonayno waxaad doontidna samee anaguna sidaas ayaan kaaga tagnay. Gabadhiina kelideed ayaa meeshii lagaga tegay. Maclimadiina maamulkii waa ay gaarsiisay waxay ku tiri gabadhaadu waa noocaas. Hooyadeed markay timidayna wax walbana waa loo sheegay waxa lagu yiri lacag la qaadana ma jirto. Hooyadeed markay soo noqotay guriga ku soo noqotay si xun ayay u garaacday si xunna way u dishay. Waxayna ugu dhaaratay in maanta wixii ka dambaysa inay guriga albaabkiisa dib dambayso uga baxayn wax walba dhacana. Waxayna ku tiri haddii aad rabtid xitaa iska bax anigu kuma rabo waayo adiga in fara badan ayaa aan kugu soo daalay tacabkaygiina waxaas ayaad ka dhigtay. Hooyadeedna waxay iska tagtay shaqadeedii. Gabadhiina waxay ku tiri haddii aad rabtid ha igu soo noqon. Gabadhii hadalkii hooyadeed ayaa aad iyo aad u taabsaday. Gurigiina waa ay ka carartay iyadoo cararaysa markii dambe guri ku leh maxaad la ooyeysaa taasoo qaladkaaga ayay ahayd. Markaasay ku tiri maxaa aan sameeyaa haddii aan qaldamay hooyaday ma doonayso inaan qaldamo. Markaasuu ku yiri saaxiibka xunna iska yaree waxaana samaysa hooyada raaligelin waxaa laga yaabaa inay raali noqoto. Hooyadeed bay u timiday ku tiri wax walba u sameeyey hooyo iga raali noqo dib dambaysana uguma noqonayo. Markaasay islaanta ku tiri waan kuu ogolahay waxbarashadii laakiin dadka unhum ha ku noqon dib dambaysana waxaa ugu noqon. Markaasay ku tiri waa balan waxna waan dhiganayaa. Hooyadeedna way afitay. Sheekadeenii maantuna intaas ayay ku dhammaatay waxaana leeyahay waalidka hadalkiisa qaata iyo taladiisa.